ninkan waxa uu fuliyay weerar lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada danab iyo ciidamada kale ee xoogga dalka Soomaaliya. waa ninkii ifka dhaafiyay taliye Xasan Tuure oo lagu dilay degmada Galcad. magaciisu waa Mucaawiye Cumar oo sargaal laba xidigla ah oo ka tirsan ciidamada commandoska ee danab ee Mareykanku uu tababaro. sidoo kale waxa uu sabab u ahaa inay soo baqacaraan ciidamadii la geeyay deegaanka Budbud, halkaasoo ay kooxda gawaarista ah ee Al-Shabaab ay ku soo weerartay. dhacdadaasi waxaa la soo warinayaa inuu abaabulkeedii u lahaa sargaalkan oo hadda ku xiran taliska Balidogle oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Africom ee Mareykanku. ayaa laga soo xigtay in aysan ku raacin lacag ama uusan ku raacin ururkaasi lacag, balse ay caqiido ka ahayd siduu hadalku u dhigay. waxa uu ka soo jeedaa deegaanada Hirshabelle, gaar ahaan Hiiraan, degmadaasi Jalalaqsi. arrintan ayaa yaab iyo fajac noqotay, waxaana ilaa ay hadda ku socota baaris dheeraad ah oo la xiriidha dhaqdhaqaaqiisii muddadii kooxdaasi uu la shaqaynayay isagoo xiran tuutaha danab iyo arrimo kale, iyo tallaabadii uu ku dilay taliyihii ciidankaasi danab Xasan Tuure. qaar ka tirsan falanqeeyaasha arrimaha ciidamada ayaa qaba in ka hor inta aan la askareenin ay tahay in aad loo hubiyo dadka ciidamada qoranaya, taasi oo suuragal ka dhigi karto in ay gawaaristu weyso fursad ay ku soo galaan xayndaabka ciidamada. saraakiisha ciidamada xoogga Soomaaliya ayaa noo xaqiijiyay in Mucaawiye uu qirtay abaabulka iyo qorsheynta weerarkii Galcad ka dhacay ee lagu dilay Allah u naxariistay Xasan Tuure, sidoo kalena askar kale oo badan lagu dhaawacay. geesta kale, wasiir Jaamac, wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya, ayaa dhacdadan si hordhaca uga hadlay. waxa uu yidhi, nin ku og oo adiga kula jooga oo xaafadaha caadiga ah kula jooga ama mas-uuliyad waxa uu rabo ha haayo, iyo nin duurka ku jira oo gawaarij ah oo isku hadaf ah waaye. markaasi waa in shacabka Soomaaliyeed aysan ku kadsoomin. wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Jaamac ayaa sidaas ku waramay. wasiir Jaamac waxa uu sidoo kale sheegay in dowladdu ay ka go'an tahay dagaalka Al-Shabaab, isla markaasna uusan waxba iska bedelin go'aankii hore lagu bilaabay dagaalka. sidaas daraaddeedna ay tahay bulshadu meel ay uga soo wada jeesato kuwa barobagandada ku wada gulufka dagaal ee ka dhana kooxdaasi Al-Shabaab. dagaal ayaa lagu jiraa, marka dagaal lagu jirana waa iska dhib badan yahay oo barobagando badan yahay. waxaan rabnaa inay kadsoomin. 8 bilood ka hor waddadii aan ku taagnayn aanu ku taagannahay. haddii maalin xabad dhicin, maalinta labaad ayaa xabad socotaa. haddii maalin askari naga shiidaynin, mid ayaa naga dhaawacmaya. iyaysan ka gorgortamin, ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya. waxuu hadalkiisa sii raaciyey, dadka Soomaaliyeed waxaa dhiiggaas, sharaftaas iyo maalkaas loo bixinayo. iyaysan ka gorgortamin, iyaysan qolo kale u adeegsan barobagando oo yaa loo fahmin in qadiyadda shakhsi leeyahay ama madaxweyne leeyahay ama wasiir leeyahay. qadiyadda qaranka Soomaaliyeed ayaa iska leh oo qawaarij lagula diriraya, ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Jaamac, oo isagu ka hadlayay dhacdada markaasi ku gadaaman weerar kolsii horeysay u qorsheeyay sargaal ka tirsanaa oo laba xidigla ah ciidanka commandoska danab ee Mareykanku uu tababaro, kaasi oo lagu dilay sargaal sare Xasan Tuure oo ahaa taliyihii ciidamada markaasi danab ee kolsii horeysay lagu dilay degmadaasi Galcad.